dadka qaarkood ay galaan waxaa ka mid iyadoon beledkii laga soomanayn dowladdii islaamka ahayd tusaale ahaan ee waddankaa ka jirtay iyadoo ay tidhi soom maaha waa 30kii shacbaan markay arrintaasi daraaseeyeen ayaa waxaa dhacay dadka qaarkood inay jamaacatu muslimiinkii beledkaa ku noolaa ay khilaafaan oo kuwo kale oo ka fog ay waafaqaan isla markaana ay soo haystaan inay yihiin kuwo wax wanaagsan sameeyey oo dadka kale iyagu aan soomin ka wanaagsan oo cibaadadii markaa iyagu u dadaalay waana qalad arrinta noocaasi ah dadka beled qura wada degan ayay tahay midnimadooda marka koobaad in la ilaaliyo waayo khilaafka iyaga dhex mara cibaadada jamaaciga isku khilaafaan raad buu ku yeelanayaa ka weyn raadka uu ku yeelanaya khilaafka ay cibaadada bilowgeeda iyo dhammaadkeeda isku khilaafaan dad waxa weeyaan ka fog oo muslimiin oo meel kala degan waktigii nebiga waktigii saxaabadana ridwaan ullahi calayhim way dhacday in soomka la kala hor bilaabo sida muslim uu ku wariyey saxiixiisa cabdullaahi ibnu cabaas waxaa u yimi nin shaam ka yimi abu kurayb oo taabici ah markaa wuxuu sheegay waktigu mucaawiya ahaa amiiru lmuminiin in jumcihii soomka la bilaabay shaam oo amiiru lmuminiin iyo dadka la joogaa maalinkii jumcaha ay soomka ka bilaabeen cabdullahi ibnu cabaas radi allahu canhu wuxuu yihi walaakinana ra'ayna alhilaala fi الsabt falaa nazaalu nasuumu xataa naraahu aw nukmil alcidda lakiin anagu maana arag jimcihii sabtidii baan anagu aragnay markaa soomka waanu wadaynaa ilaa aanu 30 bisha arkayno ama 30 aanu dhammaystirayno wuxuu ku yihi mucaawiye miyaana tiisa yeelahayn wuxuu yihi la maya haakada qaala lana rasuul اllah sidaasuu nagu yihi rasuulka ilaahay waa hadalka ay culimadu ka soo saareen arrinta ku saabsan ikhtilaafu lmaaalic kala duwanaanshaha maaalicdu iyo raadka uu ku yeelan karo soomka culimo yihi maya meesha mashriq iyo maqrib meesha la doonaya alla kala joogay mar baa soomka la wada bilaabaya waa jiraan culimo iyagoo hadalka ibnu cabaas ka duulaya yihi ikhtilaafu lmaaalic waa la eegayaana waa jiraan waa masale fiqiya oo lagu kala duwanaan karo dadka qaarkood ficlan bay u khilaafaan wada jirka ay tahay soomku inuu bilaabmo oo u dhammaado dadka qaarkoodna qowl baabay ku daraan waxaa laga yaabaa inay ku dhaleeceeyaan cidda mas-uuliyiintaa ee sidaasi samaysa ee waddan kale khilaafta innagu tusaale ahaan axad baynu soomka bilownay waddamo kalena sabtidii bay bilaabeen culimo ayaa wasiirku uu fadhiisiiyey kole anuu kumaan jirin 10 sheekh ragga odayaalo waaweyn iyo dhalinyarba leh iyagaa ku qanci waayey soomka ay bilaabeen wadamada qaarkood yowma sabt oo diiniyan u arkay inay sidani sax tahay xataa adiga hadday kula khaldan tahay inaad waafaqdo oo jamaacada aad ilaaliso mar haddaanay masaladu ahayn masale nas khilaafsan masale ijtihaadiyo ru'yadii ma sugnaatay mise may sugnaan ku saabsan sidaas ayaa waajib kugu ah in lagu dhaleeceeyo masaaisha noocaasa culimada iyo mas-uuliyiintana oo bisha ramadaan dhexdeeda dadka qaarkood ay caytamaan iyaduna waa dembi weyn oo foolxumo ah sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen dadkii muslimiintaa baynu ka hadhnaynaa waaqiciyan hadalkaasi sax uma aha waayo tirada muslimiinta marka la eego tirada muslimiinta ee u badani axaddii bay soomka bilaabeen oo innagay mari nala bilaabeen marka tiro ahaan loo eego maaha wadamo tirada muslimiinta inta yar baa soomka bilowday yowma sabt wadamadii muslimiinta u tiro badnaa sida malaysia indonesiya wadamada carbeed qaar fara badan oo ka mid ah sida maqrib oo kale urdun cumaan wadamo kale oo islaamka ku abtirsada sida iiraan bakistan iyo hindiya iyo adu tiradii u badnayda muslimiintu yowma sabti may soomanayn sideen oo kale
xataa haddii ay dhici lahayd inta u badani inay yowma sabti soomaan inaguna axad aynu soonno badnaanta oo qura wax lagu qiimeyn maayo marka masaaisha noocaasa waa in culimada looga dambeeyo waa masaa'il fiqiya oo daqiiqa xataa culamaa lislaam ay hore isugu khilaafeen dibna in isugu khilaafaan ay udhici karto qof walibana inuu mufti ka noqdo maaha oo isagu ka hadlo uu ihahdo sidanaa khalada sidanaa sax waxaad leedahay waa lagu weydiinaya